Xilli habeen ah, qabow badan uu jiro, roob badanna uu da'ayo, waxaa jiray wiil dhalinyaro ah oo joogay isbitaalada yarka mid ka mid ah. Si kada ah waxaa ugu soo gashay haweeney aad u da'weyn. Haweeneyda waxaa ka muuqda xanuun. Muuqaalkeeda guud iyo labiskeedaba waxaa laga fahmi karaa inay tahay reer tabareed, dadka aan xoolaha aan haysanin. Haweeneyda waxaa la socday wiil dhalinyaro ah oo meelaha 30 jirka ah. Waxaa ka muuqda laftirkiisa dhafar iyo daal fara badan. Dhakhtarkii wuxuu u soo dhawaaday haweeneydii wuxuuna weydiiyey xanuunkeeda. Waxay u sheegtay inay aaminsan tahay sokorta dhiiggu inay ku kacsan yihiin. Dhakhtarkii waa u dhoola caddeeyay haweeneydii wuxuuna ku yidhi wax walba way hagaagsananayaan insha Allah. Wiilkii dhalinyarada ahaa ee haweeneyda la socday waxaa u soo dhacay taleefan. Dhakhtarka ayuu ka codsaday inuu ku hadli karo. Bannaanka ayuu aaday. Taleefanka ayuu ku soo hadlay. Xogaha kadib ayuu soo noqday asagoo aad u murugaysan. Ilina ay ku soo istaagtay indhihiisa. Markaasuu dhakhtarka wuxuu ku yidhi xaaladda halkay maraysaa. Dhakhtarka ayaa wiilkii u sheegay in ansuliin aad loogu baahan yahay isbitaalkana aan laga helinin. Wiilkii dhalinyarada ah ayaa yidhi aniga ayaa doonaya ansuliin magaaladan anaa ka keenayo. Haweeneydii ayaa wiilka ku tiri ha is cadaabin, bannaanka qabow ayaa ka jiro, khayr Allah ku siiyo, wanaag intaan ayaa igu filan. Wiilkii dhalinyarada wuxuu yidhi maya, muhiimadda waa badqabkaaga, waana u baxay. Dhakhtarka ayaa haweeneyda u soo dhawaaday wuxuuna ku yidhi waa wiilkaaga, wuuna ku qasban yahay wax walbaad u baahan tahay inuu kuu keeno, maxaa yeelay waxaad tahay hooyadiis. Waxay ku tiri maya, hooyadiis ma ihi. Aniga oo soo lugeynayo halkan u soo socdo ayuu i arkay asagoo baabuur wato. Dhinacayga ayuu gaariga ku joojiyey wuxuuna igu yidhi soo gal, aniga ayaa ku geynaya meesha aad u socotid, waana uu i keenay. Haddana waa kan ansuliinka ii doonay, khayr Allah siiyo. Wiilkii dhalinyarada ahaa ansuliinka ayuu keenay. Xogahay markuu taagnaadeen taleefan ayaa u soo dhacay. Bannaanka ayuu u baxay. Taleefanka ayuu ku soo hadlay. Wuxuu soo noqday markaan asaga oo faraxsan oo leh alxamdulillaah, alxamdulillaah. Ilaahay adiga ayay kuu sugnaatay mahad. Dhakhtarka ayaa ku yidhi hadaayay taleefan baa kuu soo dhacay. Waxaa soo noqotay adigoo murugaysan. Haddana taleefan ayaa kuu soo dhacay. Waxaad noo soo laabatay adiga oo faraxsan. Nooga sheekay qisadaada. Wiilkii dhalinyarada ah wuxuu yidhi aniga magaaladan ayaan ka shaqeeyaa. Xaaskaygana waxay joogtaa gurigeena oo magaalo kale ku yaallo. 7 sano ayaan isqabnaa. Sanadkan ayaan uur ii qaaday. Hadaay alle soo wacay waxaa la ii sheegay caawa inay habeenka dhal lahayd ay tahay dhiig far badan oo ka yimid. Xaalad khataran ay ku sugan tahay. Dhiiggeedana uusan oolin magaalada isbitaalka uusan oolin. Aad ayaan uga murugooday. Ansuliinka markaan doonaa Ilaahay baryay kuna tawassulay. Waxaan Ilaahay ka baryay xaaskayga iyo canugayga inuu Ilaahay badbaadiyo. Mar kale ayaa la soo wacay waxaana la ii sheegay in 3 nin oo magaalada laga aqoon ay yimaadeen dhiig tabarucadan ay wadaan nooc kasta uu yahay. Xaaskaygana dhiigii halkaas looga shubay. Ilaahayna uu ii badbaadiyay iyadii canugaygaba. Dhakhtarka ayaa yidhi markaan wanaag aad haweeneydan u samaysay kaama uun soo daahin. Gurigaagii ayuu ku laabtay. Waa kan xaaskaagii Ilaahay kuu badbaadiyay subxaanahu wa tacaala adiga oo ka maqan. Fadlan qisadan haddaa ka heshay like saar, nagu soo xirnaaw subscribe dheh. Aad ayaa u mahadsan tahay.